الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحدا شرفta leh ee maanta na soo booqatay ugu horeeya agaasime Sharmaake iyo madaxda kale agaasimaha guud ee bilic soo celinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta kale ee la socota dhamaantiin soo dhawaada halkani waa xarunta labaad ee shirkadda Muqdisho Medical Waste xarunta koowaad Jazeera ku taala laakiin halkan baan ku shaqeynaa shirkadda Muqdisho Medical Waste mudan agaasime waxay ka shaqeysaa qashimada ka soo baxa goobaha caafimaadka ay shirkaddu gubtaa shaqadaas ay gooni u tahay qashimada xaafadaha iyo waxyaabaha kala ma qaado waxa uu ka shaqeynaa medical waste waa solution for medical waste baan ka shaqeynaa runtii waa la ogsoon yahay dhibaatooyinka ay leeyihiin waxyaabaha medical waste-ga in aan qashimada kale lagu dari karin in maaragtay ay tahay khatar bulshada ku laabanaysa haddii la geeyo meel aan ku habbooneyn annagu waxaan u dhisnay goobtan waxaan u keenay u dhisnay incineratorkaas waan ugu talagalnay inaan ku manage gareyno waxyaabaha medical waste-ga sidoo kale waxaan sameeynay mishiino oo rakibtaankooda iyo diyaar garowda hadda ku jirto oo aan wadno shirkaddu shaqadaas ayay qabataa waxaana gooni u tahay medical waste-ga qashimada ka soo baxa goobaha caafimaadka shaqaalo tababaran oo xirfad u leh training aynu siino ayaa goobta ku sugan oo u shaqeeya shirkadda oo well training ah sidoo kale dad aqoon u leh xirfadan medical waste-ga ayaa shirkadda hogaaminaya oo manage gareynta iyo sida wax loo gubo la socda waayo markii medical waste-ga la gubayo qaabo fara badan ayaa loo gubaa waxa jirta qaar la doonayo daawooyinka oo kale in la xabaalo oo aan lagu sameyn karin oo alkalin leh oo haddii la gubo ay qarax ka dhalanayo marka waa qaabab kala gooniya ayaa loo kala diyaariyaa qaar waxaan ku gubnaa senatorka u talagalnaa cirbadaha inaan ku burburino marka shirkaddu shaqadaas ay qabataa waana ku mahadsantihiin inaad maanta na soo booqataan madaxda sharafta leh inaad eegtaan shaqadaan wadno marka soo dhawaada mudane agaasime aniga agaasimaha technology iyo logistics gobolka Banaadir waxaa farxad maanta saaxiibkay ama kolleegayga agaasimaha guud ee bilic soo celinta Sharmaake booqashada maanta aan soo booqanay Muqdisho Medical Waste waxaan u jeedaa meel qiimo leh oo qaaya leh oo aad u weyn inay meesha noo tahay waxay leedahay senator weyn oo wax lagu gubo iyo meel qashiga lagu waxa ajaa'ibka badan waliba dadka uniformka iyo dharka ay wataan iyo quantiga ay wataan waxaan u mahad celinayaa dadka manage gareeyay oo programkan soo sameeyay iyo shaqaalaha Muqdisho Medical Waste waxaan rabaa inay inta in ka badan ay sameeyaan waxaan aad ugu faraxsanahay goobta weyn oo dhererkeeda aad u weyn ganjeelada leh lagu xafidayo waxyaabaha oo qashinka wuxuu u qaybsamaa laba nooc solid waste iyo medical waste solid waste-ga waa waxyaabaha maqaayadaha waxyaabaha oo sida badan disposalka aad u khatarto ayaa lahaa sidaa darteedna waa ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan agaasimaha guud ee nadaafadda bilic soo celinta Sharmaake aan ku soo dhaweeyo arrinta bahda Muqdisho Medical Waste Management oo ka shaqeysay shaqadan quruxda badan leh aad arkaysaan runtii waxaan soo booqday halkii uu duqa magaalada Muqdisho u asteeyay in la geeyo qashinka godkii waxar cadde waxaan imid maalmo dhaweyd ayadoo oo ay isugu mid yihiin qashinka laga keeno guryaha iyo medical waste-ga runtii waxaan amar ku siiyay shirkaddii u haysatay contractiga ama ogolaashaha inay ka saarto qashinka daawooyinka ay ku dhex shubayso runtiina maanta waxaan daafurnay ama aan xariga ka jarnay xaruntii loogu talagalay medical waste-ga si aanan isugu mid u noqonin qashinka iyo daawada runtii waa laba shay oo kala duwan qashinka dad baa sidaad aragteen ama aad magaaladaba ka aragteen wax ka sii raadiya oo nolol maalmeed ka sii raadiya walow ay qashin tahay haddana dad baa faa'iido ku qabo dab ku shita runtii in la isku daro marka qashinkii caadiga ahaa iyo daawooyinka isbitaalada laga soo qaaday ayaa waxaan u aragnay wax caqabada waxaana amar ku siiyey qolada Muqdisho Waste Management inay keento meel ka duwan meesha ay marka hore ku shaqeynaysay runtiina waxaad aragteen maanta xarun ka duwan xaruntii qashinka oo u gaara oo leh mashiinkii wax lagu gubayay qashinka daawooyinka iyo cirbadaha waxyaabaha la midka runtiina waxaan aad u bogaadinayaa sida quruxda badan leh shaqada u dhacday annagoo ka duulayna markastaba amarkii duqa magaalada Muqdisho ee ahaa balad nadiifa iyo bulsho nabada
waxaan mar kasta u taaganahay inaan kormeerno xarun kasta oo shaqo laga hayo ama ka shaqaynaysa nadaafadda ama bilic soo celintaba runtii kormeerkeena maanta wuxuu ahaa Muqdisho Waste Management waxaan aragnay wixii ka duwanaa markii hore waxaan aragnay waan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee shaqooyinku wadaan dhammaan maadaama uu jiro cudur faafa oo dhibaato ku ah adduunyada oo dhan runtii isbitaalada waxaa la geenayaa dad kala duwan oo qaba caabuqa iyo kuwa aan qabinba runtii dhammaan isbitaalada magaalada Muqdisho waxaan baaq u dirayaa oo ah inay iska diiwaan geliyaan shirkadda ka shaqeyso Medical Waste Management si loo xakameeyo ama loo yareeyo khatarta faafidda cudurka coronavirus sababtoo ah haddii loo dhiibo shirkad nadaafad ka shaqeysa qashinka medical waste-ga waa dhibaato runtiina waxaan jeclaan lahaa inay la qaataan isbitaalada waana booqan doonaa xarun kasta ama isbitaal kasta haddii ilaahay yaraaho waan arki doonaa sida ay u manage gareeyaan waxa ka soo laabta ama ay noqoto waxyaabaha aanan la isticmaalin markaas sida daawooyinka dhacay oo kale cirbadihii la isticmaalay oo kale runtii booqashaan ku sameyn doonaa dhammaan isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaala saacad kasta waxaan u taaganahay sida kor loogu qaadi lahaa horumarka magaalada Muqdisho waana mahadsantihiin Follow